ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu noo soo dejiyey kutub qur'aan ah oo loogu talagalay dadka in looga bixiyo mugdiga, in looga bixiyo shirkiga iyo gaalnimada, in looga bixiyo dulmiga, cudwaanka, gardarsiga iyo waxyaabaha la midka ah oo dhan, loogu bixiyo iimaanka, tawxiidka, hidaayada, xaqa iyo khayrka dhammaantiis. sidaa darteed ayuu ilaahayna amray kitaabka munazalka ah bacdamaa kalaamkiisa uu yahay inaan aad iyo aad ugu faraxno, aan soo dhowayno, aan barano, aan dhegaysano, kuna camal falno. ilaahay wuxuu yidhi: waidaa quri'a alqur'aan, mar allaala marka aad maqashaan ama la aqrinayo qur'aanka, kalaamka rabbi ciza subxaanahu wa tacaala, oo aad maqashaan in diinta ilaahay iyo kalaamka ilaah la aqrinaayo. waidaa quri'a alqur'aan maxaan samaynaynaa? fastamicuu lah, dhegaysta, ku tadabbura, qalbigiina ha ku khushuuco, ha noqdo mid aad fulisaan dhaqankiisa. sida ayuu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala. dhegaysta mar allaala markaad dhegaysanaysaan, wa ansituu, aamusa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. waayo waxa sheedlaya oo sheedalkiisa la dhegaysanaya waa khaaliqiina qalqay, waa samaawaadkii arlada allaha abuuray, waa allaha cadaabka iyo naxariista ay gacanta ugu jirto. idan aamusa marka la aqrinayo kalaamka ilaahay. haddaad dhegaysataan ood ku camalfashaan, ood ku dadabburtaan, ood aamustaan, ood ku khushuucdaan, ood ku oysaan, lacallakum turxamuun, waa laydiin naxariisanaa. raxmadaa soo degayso, naxariis ayaa imaanaysa. maca alasaf iyo nasiib xumo waxaan ku beddelanay maanta heeso, waxaan ku beddelanay buraanbur, waxaan ku beddelanay waxyaabo ay shayaadiintu keeneen. aad ayaan ugu riyaaqnaa, una jecelnahay. qalbigeenna waxaad u malaysaa inna la yidhi heesaha ku khushuuca, heesaha dhegaysta, heesaha qalbigiina ha ku khushuuco, indhihiina ha ku biyeeyo oo ku ooya. saasaad u malaysaa maanta in la yidhi. maca daalika waxaan wax ka tilmaamaynaa dadku inay aad uga fogaadaan waxa la yidhaahdaa heesaha. xukun aad iyo aad u adag ayuu leeyahay. dadku waa inay ka fogaadaan, waa inaysan u dhowaanin, waa inay ka durqaan, ayna ku beddeshaan ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, diinta ilaahay waa diin xaq ah, xagga rabbi ayay ka timid subxaanahu wa tacaala. waxa ka soo haray oo rabbi subxaanahu wa tacaala kaa durjinayo waa inaad iska ilaalisaa, waa inaad rabbigaa u soo noqotaa subxaanahu wa tacaala. haddaba ilaah subxaanahu wa tacaala dad ayuu jahannama u ballanqaaday. walaqad dara'naa lijahannama, jahannama waxaan u qalaqnay kafiiran, in badan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala, oo min aljinni waalinsi ah. jinni iyo insi badan ayaa jahannama loo abuuray, jahannama loo qalqay. sababtu maxay tahay? lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa, qalbiyaale ayaa la siiyey, diinta allay ku fahmi waayeen, heesahay ku xifdiyeen, heesahay ku dhegaysteen, heesahay u riyaaqeen. lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa, waxaa la siiyey indho ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. xaqay ku arki waayeen, diinta allay ku fiirin waayeen, fanaaniintay ku fiiriyeen, kuwa heesaay ku fiiriyeen, waxay ku daawadeen macaasi walba oo ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. indhihiina sidaa ayay u adeegsadeen. aadaan iyo dhaga ayaa la siiyey, laa yasmacuuna bihaa, xaqay ku maqli waayeen, diinta allay ku dhegaysan waayeen. waxa rabbi noo soo diray oo diintiisii ah way ku dhegaysan waayeen, heese ayay ku dhegaysteen, waxyaabihii rabbi xaaraantinimeeyey ayay dhagahooda u isticmaaleen.
rabbi wuxuu yidhi ulaa'ika ama kuwaasi waa kal ancaam, waa xoolo oo kale. xoolaha wanaagsan heesuhu ma dhegaystaan, xoolaha wanaagsan rabbigood ayay caabudaan, xoolaha wanaagsan way tasbiixsadaan, xoolaha wanaagsan ilaahii qalqay wuxuu ku abuuray ama uu ku hidaayeeyey ayay markaa ku socdaan. bal hum adal, ayagaa ka dhumid badan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. wa ulaa'ika hum alghaafiluun, waa kuwa ilowsan xaqa, waa kuwa ilowsan aayaadka ilaahay, waa kuwa ilowsan diintii naloo soo dejiyey, waa kuwa ilowsan rasuulka sunnaduu noo dhaafay salawaatu ullaahi wasalaamun calayh. haddaba dhegihii waxaanu adeegsan weyna maanta diinta ilaahay, waxaanu adeegsanay inaan ku dhegaysano heesaha. war dadka muslimiinta ah oo rabbigood ka xishoonayo ka fogaada waxa la yidhaahda istimaaca iyo dhegaysiga heesaha. guryaheenna maanta waxaa buuxiyey heesooyin, dukaamadii waxaa ka wada shidan heesooyin, gabdhihii waxaa laga kari la'yahay heesaha joojiya. war masaajidada taga, war goobaha diinta taga ee diinta ilaahay barta. waa laga la'yahay gabdhaha maanta xaraf diineed barta, ilaa waxay xifdisan tahay 28 iyo wax ka badan oo heesooyin ah. boorsada waxaa ugu jira cajalooyinkii heesaha, guriga waxaa u dhooban cajalooyinkii heesaha. war iska ilaali, ilaahayna ka cabsi subxaanahu wa tacaala. aabbihii ayaa gadaaya, hooyaa u soo gedaysa. mar allaala markay guriga xaaqaysa koorka waxaa u daaran heesaha, markay dukaanka gedaysa waxaa u daaran heesaha, markay kushiinka ku jirta waxaa u daaran heesaha. aaway kalaamkii rabbi subxaanahu wa tacaala, war aaway diintii ilaahay, war aaway kalaamkii rabbulciza. ma waxaa ka qiimo batay kuwa fanaaniinta ee heesa oon dulliyaasha ah oo rabbi agtiisa qiimaha aan ku lahayn. waashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun, abwaaniinta, fanaaniinta, shucarada, dulliyaasha, kuwa lagu tilmaamo inay ayagu yihiin inay dadku hanuuniyaan, dad ma hanuuniyaan oo dadkay baadiyeeyaane waxa raaca kuwa haawiintaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. gabar dhunsan iyo wiil dhunsan ayaa raaca, ayagaa ku socda, ayagaa cajalooyinkooda soo gata, ayagaa ku riyaaqa, ayagaa dhegaysta, ayagaa habeenkii ku jiifta. xaaladoodaa sidaa ah. waxaa raaca haawiinta buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. waashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun. ilaahasoo ka hadlaya muxuu yidhi alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun. ma arkin miyaa fanaaniinta waadi kasta inay iska dhex dabaalanayaan, rasuulkii allay ku heesaanay muusi ku kortumaan, mararka gobol ka mida kalaamkii allay ku heesaanay muusi ku kortumaan, mararka gobol ka mida shaytaan bay ku ammaanaan, mararka gobol ka mida madax taaqiin ah oo xadgudubtay ku ammaanaan, marar gobol ka mida waxyaabo jacayl ah oo wel ay ka keeneen in cadaab lagu mutaysta maahane aan naxariis alle lagu helin ayay ku ammaanaan. alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun. waxay ku hadlaan waxyaabo aysan falayn, waxyaabo aysan samaynayn, waxyaabo hamigooda uusan gaarsiisnayn, kaasay ku hadlaan buu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala. war wiilasha jecel heesaha iyo gabdhaha heesaha jecelow towba keena, rabbigiin u soo noqda, cajalooyinka heesaha bedela, war qur'aanka iyo kalaamka rabbulciza ku bedela. war waxaan heesa oo aad dhegaysanaysaan qabriga waxay idinkaga anfacayaan ma jiro. war cinda sakaraad haddii la gaaro waxay idin anfacayaan male. qof walba ha ogaado waxa dhegihiisa ka bata qalbigiisa uu ku jiro ayuu ku qaatumaystaa kuna dhintaa. gabar ayaa sakaraaday maalin, say u sakaraadaysay dhowr maalmood u sakaraadsanayd ayaa la damcay in tawxiidka loo laqino oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allah dheh. aad bay heesaha u jeclaan jirtay, cajalooyinka heesahay dhegaysan jirtay. lagama keri karin jooji, iska dhaaf lagama keri karin. sakaraadkii ayaa la gaaray, waa maalintii ugu dambaysay ee dunida, waa maalintii ugu horaysay qabriga u hooyan lahayd. walaalaheedaa laga dhex wadaa, waalidkeedaa laga dhex wadaa, karfan cad ayaa loo gelinaa. maanta waxay u socotaa qabri ciriiri ah, daarta adduunkay ka guuraysaa, daarta
aakhiray u socotaa, waa sakaraad, waxay jiiftaa meeshay ku xayaata bixi lahayd. sidaa ayaa loogu wareegsan yahay. waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah dheh, waayo man kaana aakhiru kalaamuhu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna. qof kastoo warkiisa ugu dambeeya uu noqdo laa ilaaha ila allah jannaduu galaa. gabadhu waa la jeclaa inay laa ilaaha ila allah dhahdo si ay jannada u gasho. aad bay u fiicneed, laakiin nasiib wanaag markay soconaysay heesi jirtay, markay suuqa ka soo adeegaysay heesi jirtay, mar allaala markay kushiinka ku jirtay heesi jirtay. salaadaha allay ka tagtay, diinta alla ayay raaci weysay, kitaabka allay hoos marisay, heesihii ayay kor soo marisay. dadku waxay dhaheen laa ilaaha ila allah dheh, laa ilaaha ila allah dhehaa lagu celceliyey si ay khaatimadeeda u wanaagsanato. waxaa lagu celceliyey kelimada tawxiidka si ay jannada allah u hesho. waxaa loogu celceliyey shahaadateynka inay qirto, laakiin arrintaa way awoodi weysay, waayo ayadaa ku soo barbaartay fisqi iyo macaasi iyo waxyaabo ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. gabadhii afkeeda lagama helin hadal aan ahayn labadii walaala'a ninkii lacag leh ayaa weyn. sidaasay xayaatada uga baxday, sidaasay u dhimatay, sidaasay alla ku tartagtay subxaanahu wa tacaala. ayadoo hadalkeeda sidaa ah ayaa la dhaqay oo karfanta la geliyey oo qabriga la dhigay. waxa la soo bixinaa ayadoo heesaysa oo dhehaysa labadii walaala'a ninkii lacag leh ayaa weyn, waayo qof kasta wixii uu ku barbaaruu ku duqoobaa, qof walba wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa, qof walbana wuxuu ku dhintuu alla ku soo bixiya subxaanahu wa tacaala. sidii nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam, yabcaثu allahu kullu axadin calaa maa maata calayh. wixii korkiisa uu ku dhintaa lagu soo bixiyaa. walaalayna daadna maqlaysa demi cajalooyinka heesaha, war dukaanka ka bixi, rabbi subxaanahu wa tacaala diintiisa ku bedelo, baraka iyo khayr ayaad gaaraysaa adduun iyo aakhiro. war dadka heesaha jecel alla agtiisa wanaag kuma laha. rasuulka wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, dadka ayaga heesaha jecel oo aad ugu riyaaqa oo heesaha dhegaysta, dhegahooda in lagu shubayo rasaas naareed oo la dhalaaliyey. sida aad maanta ugu dhegaysanayso ugu raaricinayso cajalooyinka heesaha, ayaa qiyaamaha iyo qabriga dhegaha lagaaga shubi doonaa rasaas naareed oo la dhalaaliyey. dhegahaaga uma adkaysan kare diinta alla ku dhegayso. war dhegahaaga uma adkaysan kare heesaha ka dhaaf. war dhegahaaga uma adkaysan kare xaqa ku dadaal. war dhegahaaga uma adkaysan kare diinta ilaahay raac, saad adduun iyo aakhiro horumar u gaarto. aad iyo aad ayay nasiib xumo u tahay. habeenkii marka la seexanayo adkaar ayaa jirta la akhristo, subaxdii marka laga soo kacayo adkaar ayaa la akhristaa sida nebigana baray sala allahu calayhi wasalam. guriga markaan ka baxayna adkaar ayaa nala amray inaan akhrisano, marka aan soo gelayno saasoo kale, marka aan suuqa gelayno, markaan ka soo baxayna iyo sha'ni iyo xaalad walboo xaaladaheenna ka mid ah. war diinta alla macaanteeda fiiri, war rasuulka waxa uu noo keenay qiimaha ay leeyihiin fiiri, war sharafta ay leeyihiin fiiri. maca daalika maanta markaan seexanayno waxa noogu dambeeya waa cajalad hees ah, ayaday ku jirta ayaan ku seexanaa. gabdhuhu waa ku seexdaan, markay ka soo kacaan way ku soo kacaan, markay socdaan waa ku socdaan. aaway diintii ilaah subxaanahu wa tacaala. war aawe waxyaabihii dhufayska noo noqon lahaa oo shaytaanka naga ilaalin lahaa oo ilaahay noo dhowayn lahaa subxaanahu wa tacaala. aawe wixii ilaahay noo dhowayn lahaa subxaanahu wa tacaala. bacdamaa mar allaala marka aan seexana adkaarna la amray, rasuulku wuxuu dhahay qof allaala qofkii inta raba inuu jiifto oo makaan awgiisa iyo firaashkiisa uu rabo inuu u dunmo, haddana soo weyse qaata sida salaada loogu weys qaata oo kale, dhinaciisa midigtaa u seexda. maca daalika ilaahay isku dhiiba subxaanahu wa tacaala. yidhaahda ilaahayow nafteyda adiga ayaan kuu sallimay, wejigayga adiga ayaan kuu soo jiheeyey, dhabarkayga adiga ayaan kuu saaray oon ku cusjiyey. malja iyo meel aan u iishaa ma jira ilaa xaggaaga maahane.
aamantu allah waxaan rumeeyey kitaabkii aad soo dejisay iyo rusushii iyo nebigii aad soo dirtay. qofku hadduu sidaa yidhaahdo oo markaa seexdo, hadduu sidaa ku dhinto, ilaahay jannada ayuu geliyaa subxaanahu wa tacaala. haddii waaga uu u baryo asagoo nabad qabo, caafimaad qabo, xayaatada lagu soo celiyo, fitrada ayuu ku noolaaday oo diinta allah ayuu ku noolaaday. aaway maxaan ka naqaanaa? waysaqaadkii waxaan ku beddelan inaan marsano waxyaaba ilaahay diiday, bizaad haddaan uga hadalno dumarka, waxyaaba madaxa la mariyo, cijiyaha la marsado, faruuraha lagu gaduudaysto, taasaa lagu beddela waysqaadka. ducadii nala amray inaan dhegaysano ama aan akhrisanana waxaan ku beddelani anagoo heesayna inaan seexano oo sariirta aan korno annagoo ku jirna macaasi ilaah subxaanahu wa tacaala. maca daalika dad xaaladoodu ay saas tahay ma liibaanayaan, ma loo gargaaraa oo kitaabkii ilaahay heese ku beddeshay, oo kitaabkii ilaahay waxyaabaha dadka dhuminaya lagu beddelay. wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid liyudilla can sabiili illah. dadka waxaa ka mida mid iibsanaya sheekooyin iyo hadallo lagu haasaabo oo lagu daahdaaho ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. sababtu maxay tahay? inuu dadka ka dhumiyo asagana uu ka leexdo jidka ilaah subxaanahu wa tacaala. cabdullaahi ibni mascuud wuxuu yidhi ma idiin sheegaa aayaddaa waxa loola jeedo? waa khinaha iyo heesaha ayuu yidhi radia allahu tacaala canhu. waa ninkii yidhi waxaan ku dhaartay allaha nafsadayda ay gacantiisa ku jirtee ma jirta aayad alla soo dejiyey ilaa makaankay ku soo degtay, goortay soo degtay, waxa loola jeeda ayaan aqaanaa. haddaan ogaan lahaa nin iga cilmi badan waa raadsan lahaa. asaga ayaa yidhi aayaddaa waxaa loola jeedaa heesaha. way baxaan oo way soo gataan. say heesaha u soo iibsadeen ayay naarta jahannama u iibsan doontaa. say guryaha u soo gashteen heesaha ayay naarta jahannamo u xaraysan doontaa. say u dhegaysteen ayaa naarta jahannamo rasaas laga soo bixiyey dhagaha looga shubi doonaa. say diinta alla u naceen ayay jannada u nici doontaa. say kalaamka alla u dhegaysan waayeen oo ay u diideen ayay jannada u diidi doontaa. war xaaladda saas ma ahee dadaala, war rabbigiin ka cabsada, war diinta ilaahay kor u qaada, war xishmeeya, waa kalaamkii rabbiye, barta oo ku dhaqma. war asagaa qiime iyo wanaag leh, war asagaa khayrma iyo sharaf lagu gaaraa, asagaa adduun iyo aakhira lagu liibaanaa. waa asaga mar allaala markaad qabriga gasho midka wax kuu anfacaaya, qiyaamaha wax kuu taraaya, waa diinta ilaah subxaanahu wa tacaala. waxbaad dhegaysanaysaaiyo diinta ilaahay dhegayso, wax waa raacaysaayo diinta alla raac oo ku dhaqan oo ku camalfal. sidaa ayaa wanaag lagu gaaraa adduun iyo aakhiro. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, aakhiru zamaan waxaa la gaari doonaa inay yimaadaan qoom banaysan doona xariirta iyo zinada, qamrada iyo macaasifta, waa muusika iyo heesaha. aad iyo aad u jecel maanta haddaad dhahda iska dhaaf, nafsadeydan ugu raaxaynaa, saasay taagan tahay. waxaan noqonaa waxaan rabaa inaan qalbiga ku dejiyo, waxaan rabaa buuqa ihay inaan isaga dejiyo. war waxa qalbiga lagu dejiyo, waxa maskaxda lagu dejiyo waa ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala. alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub. ilaahay dikrigiisa ayuu qalbiga ku xasilaa oo qalbiga ku degaa oo qalbiga ku xaysnaa. war haddaad rabto inaad nafsadaada wax ugu raaxayso, diinta alla ugu raaxay. war haddaad rabto inaad nafsadaada dejiso, dikriga alla ku deji. haddaad rabto inaad horumar gaarsiiso, diinta alla ku hormari. haddaad rabto inaad qiimo iyo wanaag u yeesho, kitaabka alluu ku jiraa wanaagga iyo qiimaha ee sameey.